السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا توسي تيرتين جيل maanta mawduucaynu wuxuu ku saabsan yahay caadooyinka. waa maxay caadooyinku? dad badan oo dadkeena kamid ah hadii la weydiiyo oo ku raahday qofkaasi shayga caadan u leeyahay amba waa balwad aan leeyahay, waxa laga yaabaa in aanu u hayn micno kale oo aan ahayn shaygaasi waa iga caado amba waxaan u leeyahay balwad. bal haddaba maanta waxaan doonaynaa inaynu fahanno fahanka caadooyinka, maaraynta caadooyinka, bal inaynu aragno waxa caado dhexda ugu jira. waxaan doonaynaa inaynu ka jawaabno saddex su'aalood. su'aasha koobaad waxa weeye waa maxay caadadu? su'aasha labaadna waxa weeye intee in leeg bay muhiim u tahay ibni aadanka noloshiisa caadooyinka maalinlaha ah? su'aasha saddexaadna waxa weeye maxay ka kooban tahay caado? marka waxaan doonaynaa inaynu isku dayno saddexdaas su'aalood inaynu ka jawaabno. caadooyinku waxa weeye waa ficil wal oo aad samayso oo aad u samayso si maalinla ah amba si soo celcelisa, kaasoon kaaga baahnayn wax fikira, wax go'aana, wax adkaysiya, wax kala doorasho ah. intaa midnaba kuguma hayo caadadu. waa ficil yacni si maalinleeya aad u samayso oo aan fikirna u baahnayn, go'aanna u baahnayn, adkaysina u baahnayn, arrimo kale oo noocaas aan u baahnayn aad u samayso si yacni laa iraadi, yacni waa si aanad xataa filin, si aanad xataa dareensanaynbaba aad u samayso. marka horta caadooyinku yacni qayaxideeda ugu soo aan sidii waata ugu macquulsan wataa. su'aasha labaad waxa weeye intee in leeg bay muhiim u tahay caadooyinku nolosha ibni aadanka? haddii haddaba aynu in yartaa tusaale ka bixinno, waxaad arki karaysaa markaynu akhriyayno buugaagta amba taariikhaha dadka adduunka raadka kaga tegey yacni taariikhda leh, markaad akhriyayno historygooda amba personal detailskooda markaan akhriyayno, waxaad arkaysaa in lagu odhanayo hebel wuxuu ka dhisnaa dhinaca waxbarashada, hebel wuxuu ka dhisnaa dhinaca diinta oo yacni salaadiisa iyo waxbarashadiisa iyo arrimihiisa horumarka u keenay noloshiisa mid u soo inagu markaan isaga ka sheekaynayna waxay ula muuqanaysaa inuu yahay qofkaasi qof ilaahay awoodo khaariqa siiyey oo yacni dabiicadda ka baxsan, oo waxaan ku yidhi ilaahay ka dhigay qof awood leh oo go'aan leh oo adkaysi leh. laakiin isaga dhinaciisa haddaynu kasoo istaagno oo nahno balniyo arrimaha noocaasi maxay ahaayeen, wuxuu ku odhanayaa dhammaan waxaa la soo tiriyoo dhani ee adkaysi leh, ee go'aan leh, ee yacni waxbarasho leh, ee yacni diin ilaasasho leh, ee yacni bilaabalwadnimo leh, waxay aniga agtayda ka ahayn waa caadooyin. yacni xaggayga caadun bay ka ahayd ee kamay ahayn wax iga mutaystay inaan ku dadaalo, manay ahayn wax ilaahay samada iga keenay oo yacni mawhibo ilaahay isiiye ma ahayne dhammaan waxaan wax noloshayda iyo aasaaskayga la socday oo maalinle aan u samaynayay oo aan la qabsaduun bay ahaayeen buu odhanaya. marka horta halkaasaan ka arkaynaa caadooyinku siday muhiim ugu yihiin ibni aadanka noloshiisa. su'aasha saddexaad waxa weeye caado maxay ka kooban tahay? caadooyinku waxay ka kooban yihiin saddex wax amba saddex shay. shayga koobaad waxa weeye ee caadadu ay ka kooban tahay ee lambar 1 u ah waa waxyaabaha la yiraahdo dhiirigeliye ama waxyaabihii kugu kicinaya inaad caadada samayso. waxaas amba waad aragtay amba waad maqashay amba waad dareentay, sida tusaale ahaan kale caajiskii amba jirkiyo nokotiinta iyo sigaarkii u baahda, amba tusaale ahaan kale caadadu inaad TV-ga daawato dee waad hormartay, amba waxay tahay inaad dukaanka sigaarka kiibsan jirtay baad aragtay. marka horta stepka koobaad ee caadadu ay ka kooban tahay waxa weeye taxfiis amba waxa la yiraahdo yacni dhiirigeliye. ka labaad waxa weeye ee caadadu ay ka kooban tahay waa ficilka laftirkiisii. waa ficilka laftirkiisiyo dee markaad soo qaado baakadkii aad sigaarkii shidato waa ficilkii waxaad samaysay caadadii ahayd sigaar cabka. markaad buuggii soo qaaday aad akhriday waxaad samaysay caadadii ahayd wax akhriska. markaad TV-gii daawato waxaad samaysay yacni waxa weeye waa ficilka laftirkiisa ka labaad. ka saddexaad waxa weeye waa rewardkii amba waxa weeye natiijadii aad helaysay. tusaale ahaan oo kale taxafiisku wuxuu noqday inaad caajis dareentay amba kelinimo aad dareentay. ficilkii muxuu noqday inaad Facebookii furtay oo aad social media gashay. natiijadii amba maxsuulkii soo baxay muxuu noqday ina aad dareentay inaad keli ahayn, ina aad naftaadii raali gelisay, in aad xaraaradii kaa baaba'day, in ay jirku nokotiintii qaatay, inaad refresh dareentay. waxaasoo dhan waa ka saddexaad waxa weeye waa maxsuulka amba waa natiijada laga helo ficilkii la sameeyey. bal markaynu saddexdaa caadadii ay ka kooban tahay, bal waxaynu eegaynaa saddexdani siday u wada shaqeeyaan. haddaba halkan bal waxaynu ku eegaynaa, bal waxaynu soo qaadanaynaa aynu doonaynaa inaan in yar fahanno qodobka ugu dambeeya ah natiijada amba maxsuulka laga helayo marka caadada la sameeyey, bal farqigu keenay baynu eegaynaa. tusaale ahaan oo kale imika caadooyinka wanaagsan iyaga maxsuulkoodu wuu raagaa. caadooyinka aan fiicnayn maxsuulkoodu amba waxa laga helaa hora loo helaa. tusaale ahaan oo kale imika sigaar baad cabtay, dee sigaarka markiiba nokotiin jirkaagu qaadana response-kii waxaad ku helaysaa wax ka yar saacad iyo waqti. laakiin ninka imika wax akhriyaa dee isagoo hadhow naftiisa raali geliyo idhaahdo markuu muddo akhriyo cilmigu kororsaday idhaahdo hadhow cilmi baan kororsaday mooye yacni wax uu degdeg u helayo maaha.
bal arrinta la yaabka la jirta waxa weeye caadooyinka aan fiicnayn damage dhibaatada ay gaarsiiyaan qofka waa mid waqti u baahan yacni caadooyinka aan fiicnayn dhibaatooyinka ku gaarsiinayaan mid aad 2-3 ku dareemaysa maaha waa mid u baahan inay waqti dheer kadib aad aragto dhibaatada caadadaasi leedahay halka caadooyinka fiicani ay 2 ciladood ba leeyihiin oo ta koobaad oo ah natiijadeedii iyo dareenkeedii inaad hore u helay talabaad oo ah in faa'iidada aad ka helaysa aanay ahayn mid imika aad dareemayso halka waxaanu kaga fahmaynaa waa sababta keenta in dad badan u fududaato inay caadooyinka aan fiicnayn markiiba la qabsadaan waa sababta caadada aan fiicnayn markiiba bulshada dhexdeeda ay ugu faafayso waayo iyada markiiba maxsuulkeedii iyo natiijadeedii waa la hayaa si aad u aragtay yani halkii ka gaarsiisantay ibn aadamku inuu jecel yahay waxa soo degdega ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo ka sheekanay quraankiisa wuxuu ku yiri wa khuliqa al-insaanu min ajal wa kana al-insaanu ajula yani waxa ku tusinaysaa taasi inuu ibn aadamku ay fitra isaga ku dhex jira ay tahay inuu wax hore u helo halkan waxaan ku eegaynaa bal haddaba haddaynu fahnay caadadu waxay tahay ama caadooyinku waxay yihiin iyo waxay ka kooban yihiin sideebaa loo kasbadaa caado cusub sidaa loo kasbadaa oo caado looga dhigaa oo looga saaraa mid ku dhibaysa iyo mid aanad samayn karayn iyo mid ilaahay dadka ku manaysta ay kuu noqon karaysaa caado adigu kuu fudud oo kuu caado ah waxaan eegaynaa markaa imika haatan qodobada ay tahay inaad samayso si aad u kasbato amba aad u samaysato caado cusub ka koobaad waxa weeye su-aasha kood waxay noqonaysaa intee in leeg ba horta caado ku noqotaa marka su-aasha waxa weeye sida yacni shaayic ah amba dad badan ay ku sheekayaan ama buug badan ku qoran amba dadka yani tay wax akhriya ay arkaan waxa weeye waxay maqlaana soo noqdo hadda jeer hadalka caanka ah 22 cisho hadda shayga ku celceliso inay caado noqonayso sidoo kale waxa iyaduna macruuf ah inay jirto iyaduna nadariyad odhanaysa 60 cisho arrimahaas oo dhan waxa ka muhiimsan arrin kale inaad ogaato arrintaasi waxa weeye xagga time kuna ha ka eegine caado markaad doonayso inaad samaysato waxay maraysaa 3 marxaladood marxaladda koobaad waa marxaladda iska caabinta ee adiga iyo naftaadu ay ku jirto iska caabin waana marxaladda ugu qaadanaysa ee u baahan go'aanka iyo adkaysiga ugu faraha badan waa marxaladda koobaad marxaladda labaadna waxa weeye marxaladda aanay naftaadu raaxo ku lahayn caadadan imika socota waxa laga yaabaa caadada imika aad samaynayso in ay yacni kaaga baahnayn juhdi fara badan laakiin haddana naftaada weli ay dhibsanayso lambar 3 na waa stageka ugu dambeeya waa markii caadadii ay isku bedesho caado maalinlehaaga ka mid ah oo caadooyinkaagii ka mid ah ay kuu fudaato wey marka horta waxaan halkaa ku daraynaa oon baraarujinaynaa inay jirto yacni mar ay jirto xamaasad oo waxa la socoto marka koobaad xamaasadaasuna waa mucaqada waa mid yacni waqti koobana maha xamaasad yacni waqti dheer kula soconaysa waxa laga yaabaa in maalmaha ugu horeysa aad xamaasadaas ku wado xamaasaddu marka waxay qayb ka tahay yacni adkaysiga ama go'aankay qayb ka tahay laakiin meesha way ka baxaysaa marka dambe laakiin sida caadigaa 3 marxaladood ayuunbay caadada ay martaa markaa taa wad ogaanaysaa arrinta labaad waxa weeye inaanad mar quriya wada samayn 2 caado yacni ha isku dayin inaad mar quriya 2 caado oo cusub aad noloshaadii ku soo darto taasi waxay kaa qaadanaysaa oo ay kaa marinaysaa go'aanku maaha qayb ku jirta jirkaaga oo aan xad lahayn go'aanku waa xad buu leeyahay adkaysiguna xad buu leeyahay yacni waxaad ogaanaysaa inay kugu adkaanayso inaad wado haddaad samayso 2 caado oo tidhaahdo noloshaada kusoo biiri hal mar haddii aanay 2 caado qaar iyagu istaageeraya aan ahayn tusaale ahaan oo kale markaad jiimka tagto dee waxaa bedelmaya daayadkaagii amba cunadaadii markaa cunadii jiimka way iscaawinayaan haddaad cunadiina jiimkiina gashay cunadiina aad ku bedeshay waa 2 arrin is caawinaya marka haddaanay ahayn 2 caado oo isbarbar socdo is caawinaya haddaanay ahayn mar quriyaha isku day inaad wada samaysato 2 caado qodobkan waxa weeye inaad wado caadada laftirkeeda iyo inaad nataa'ijta iyo waxa ka soo baxaya aad intaha ku hayso waxa muhiim ah inaad iyada raasukhisoodiyada wado tusaale ahaan oo kale si aad u fahantaan qodobka yani natiijada soo baxaysa iyo caadada waxa muhiimsan caadooyinka aad samaynaysa caadadaas leedahay ha noqoto caado noloshaada ka mid ah ayaa ka muhiimsan natiijada soo baxaysa tusaale ahaan oo kale waxaad istiri waxaad ku dartaa noloshaada caadada ah inaad wax la akhriyo kadibna habeenada ka mid ah caajis dareentay adigoo dee ku takhdiisanaayeen oo yani ay ahayd inaad habeenka 2 page aad akhrido habeen walba 2 page habeenkii dambe caajis baa ku yimi kadibna waxaad naftaada ku qancisay habeen dambe inaad akhrido 4 page waa 2 laab maxaad doonaysaa inaad gaabkii xalay aad tagtay aad dhamaystirto arrinkaas waa qalad waayo halkaa waxaad ku arkaysaa inaad ihtimaamkaaga iyo aragtidaadii aad u soo jeedisay natiijadii ee maaha inaad caadadii aad noloshaadii kaga mid dhigtay halkaa marka waxaanu ka fahmaynaa natiijada iyo ii sheeg caadada waxaa muhiimsan caadada laftirkeeda haba yaraato 2 page baa ha noqota maaha hadda doonto page iyo halfkiiba ha noqotee habeenkaa wuxuun ka akhri hadhow marka dib u raacdaad isqiimaynaysa waxaad arkaysaa habeenna inaad ka boodin taasaana kugu dhiirigelinaysaa inaad sii wado
weli waxaanu wadnaa arrimihii lagu kasbanaya caadada cusub qodobkan wuxuu ku sheegayaa inaad horta xadido sidaad u samaynayso caadada cusub halkaad ku samaynayso iyo waqtigaad samaynayso yacni maaha uun wax cashwaa'i oo yacni iska wado oo maanta halkan ku eeg maaha horta inaad buugii qalin soo qaadaad fadhiisata tirahda caadada cusub baan doonaya inaan noloshayda ku soo daro marka waa inaan sameeyo xilligaa sidaana aan u sameeyo halkaana aan ku sameeyo saddexdaa qodob waa inaad yacni يعني حديداوي أرنت كلا يعني كعاون سير العادة عصب سميسته وحويه يعني تحراع هذا إسقيمه يعني سميسو كالندر كوكلا كالندر كسوقات علامة صو ما أنت تسميسنا تكسر ما أنت تكبودنا تكسر ما أنت تسميس تكسر ما أنت تكبود تكسر يعني تسوي كوف ضيدنا سئنا أوجاتو إنا وحي النقطي عادو ينال النقط لكن هتانا تسقيمين وأدو أنا دوي جمر كدوي أكتر طلع مش عشان تسميسي يمس عشان تسمين دم جرين كريت لكن أرمها كقول يرجع لك عاوني وحوي إنا أدق إسقيميسو أو يعني إسكو قيمين استبسع سيسو imika bal waxaynu eegaynaa markana hadaynu aragnay sabab siyaabaha lagu kasbado caado fiican bal imika waxaynu eegaynaa sideeba looga takhalusaa caado xun oo aad lahayd qodobadeeba loo eegaa sidee qodobadeeba loo adeegsadaa sida looga takhaluso caado xun oo aad lahayd amba caado aan fiicnayn oo aad lahayd sida sigaar cabka qaadka arrimaha noocaas arinta koobaad waxa weeye hadii aad go'aansato inaad iska diiso shaygii oo ay dhacdaba in qof kugu qasbo amba saaxiib ha noqoto amba bulshada ha noqoto amba yacni ii sheeg arrin kalabaha lagu qasbay ay dhacdaba in dadkii yacni aad ku يعني أي مرد يكون هذا نور هالكي كميس هداد كميس تهرتي هبرتها كونية شبين يعني هديو صاحب هذا حبت سيجارك وقصبين وحبت دي أنت هذا جو شرع عبين ما الحادة صارت تري كل أول ما أنت هو قد عبتي معناه هذا ما هينا إسلادة دقيقة أنا باكر أضونته مركه هرتي هنية شبين السيوط يعني إن تقوان كاجي كوسيات كيسته ما دام تاسكتمي إن ظهر السيوطه أرنت لبعض وحوي أرنتي مركه هراي نقصه هذا وحيابي كودي رجليناي وتحفيزكي وحيابي كوكا كعيناي إن يعني إسكفوا يسد كفوجاته سي aanay de caadadii wixii kugu kicinay aanad u arago de aanad u samayn arinta saddexaad waxa weeye yani marka doonayso inaad caado meesha ka saarto waa inaad soo geliso waxaad ku bedesho ila waqtigeedu uu banaan yahay laakiin hadda tira bartanan fadhiisanaya de jirka wuxuu soo dalacaya waxa la wuxuu caajis iyo ma garanaysa ay sheeg hawlahayay ila waqtiga activity buu bartay si aad caado uga saarto meel ku bedel caado kale arintana waa fahantima rajinaya arinka ugu dambeeya waxa weeye yani bulshada waxa la yiraahdaa waa gacmaha qarsoon ee sameeya dhaqamadeena yani ayaad khafiya yani waa gacmaha qarsoon ee sameeya qofka dhaqamadiisa sidoo u dhaqmo waxa waa bulshada weey marka hadii aad isku dayi karto bulshada yani inaanay kugu dhiiri gelinayn caadadii inaad ka tagto inaad isku daydo inaad bulshadii iyo bi'adii aad bedesho si aad caadadii meesha uga saarto marka horta qodobadaas waa qodobada ugu muhiimsan yani inaad caado ka takhalusto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي لاوين سبسكرايب لايك يا شير توسي 13 جيل آدي أدو المحزنتي